بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الأحبة الكرام waxaan ku soo jirnay qeybaha biyaha waxaan u qaybinay maa muطlaq ah biyo saafi oo caadi ahoo naqaano kuwa cirka ka soo dega ha ahada biyaha badda biyaha ceelasha biyaha webiyaasha biyaha labaadna waxa weeyaan waa biyaha mustacmalka ah waa la isticmaalay biyihii waxaa loo isticmaalay maalan qof baa ku qubaystay qof baa ku weyse qaatay biyaha noocaasa xukunkooda shareecada islaamka ayaan wax yar ka taabanaynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qaar ka mid a haweenkiisii ayaa ku qabaysay intuusan ku qabaysanin ka hor calayhi salaatu wasalaam weel biyo ah markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu damcay inuu ku qabaysto haweeneydii baa waxay tiri ummahaat almu'miniinka ka mid ahayd yaa rasuulullaahi ow inii kuntu junuban biyaha waxaan ku qabaystay anigoo janaabo qaba nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi biyuhu ma janaaboodaan biyuhu ma janaasoodaan buu yihi biyuhu ma janaaboodaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasna ibnu cabaas baa inoo soo saaray biyahaasna waxay biyaha mustacmalka waxaan ka qaadanaynaa biyaha mustacmalka ah waa daahir weeyaan iyaguna almaau aladii khaalatahu daahir waa biyihii saddexaad weeyaan biyaha uu dheehay ama lagu dhex daray wax daahir ah ilaa waxa daahirka way badan yihiin wa huwa almaa aladii khaalatahu shayun daahir ka waraqi shajarin aw ituraab biyahaas waa biyaha uu dheehay ama lagu dhex daray shay daahir ah sida geedaha caleemahooda o kalea kusoo daatay biyihii geedihii caleemahoodii baa bedelay oo cagaar bay ka dhigeen ama ciiddii biyuhu ay marahayeen iyo meeshii biyuhu ay jiirahayeen baa cagaar ahayd ama waxay ahayd casaan bay ahayd biyihii casaan bay isu bedeleen aw isada khasaanaat ilmiyaah ama khasaanaadka biyaha lagu kaydsado ayaa miridhay marka biyihii iyaga ahaa way isbedeleen noocan ma walam yu'ahir calayhi ta'hiiran yukhrijahu can iطlaaqi ismi ilmaa calayhi saasay tahayna biyo ahaan waa loo garanayaa oo wax isbedelahoo saameyn ah oo biyihii ka saarahaya macnahoodii meesha kama muuqdaan weeyaan arrinta iyada ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yihi haweenkiisii nebigu calayhi salaatu wasalaam gabdhihii dhaqahaya gabadhiisa faatumo wuxuu u yihi calayhi salaatu wasalaam ahay markay diyaarin hayeen ee ay maaragtay tajhiisin hayeen ee dhaqahayeen wuxuu u yihi aqsilnahaa ثalaaثa aw khamsa aw akara min dalika in ra'aytuna dalika 3 jeer dhaqa ama 5 jeer dhaqa ama ka badanba dhaqa haddii aad aragtaan in ra'aytuna dalika bimaa'in wa sidrin wajcalna fi اlaakhirati kaafuura waxaad ku maydhaan buy biyo iyo sidri ku maydha geedka sidriga la yidhaahdo ku maydha waxaadna ka dhigtaan midka ugu dambeeya kaafuur waa baraafuunka waxa weeye aada iyo aad uudka weeyaan ka dhiga weeyaan marka biyaha haddii aysan biyanimadii aysan ka bixin oo waxa weeyaan waxyaabo daahir ah ay bedeleen iyada oo asal ahaantii biyaha ayan bedelin waxa weeyaan biyahaasina waa daahir weeyaan biyahaasna waa daahir weeyaan taqayur ilmaa idaa taqayara almaau bishayin ahara calayhi wa akhrajahu min kownihi maa'an ilaa shayin aakhar ka shaayin wacasiirin wakayrihima waa masalo kale weeyaan laakiin haddii idaa taqayara almaau biyihii ay doorsoomaan bishayin ahara calayhi shay ay ku doorsoomaan saameeyey biyihiiyo wax badan ka bedelay wa akhrajahu can kownihi maa'an ilaa shayin aakhar wuxuu ka saaray biyanimadii buu ka saaray oo nooc kale iyo shay kale ayuu ka dhigay ka shaayi wa casiiri sida shaah oo kaleu ka dhigay ama wuxuu ka dhigay casiir la cabo iyo maaragtay muxuu ahay sharaab la cabo ayuu ka dhigay wakayrihima iyo wixii lamid ah falaa tasixu طahaarata bihi id laa yusama maa kaasoo kale ma banaana ama ma ansaxaysa in lagu طahaaro qaato sababtoo way ka baxeen biyihii way ka baxeen
oo shay kale ayay noqdeen waa shaahi baa lagu dhihi haddii la yidhaahdo xagga curfiga xataa waa shaah baa lagu dhihi ama waa casiir baa lagu dhihi ama waa sharaab ayaa lagu odhanayaa. mas'alada afraad ee ku saabsan xagga biyaha waxa weeye almaa aladii khaalatathu nijaasatu walam tuqayirhu, waa biyaha waxa weeyaan nijaaso ay ku dhacday laakiin ayan bedelin. nijaaso haddii ay ku dhacday bedesho waynoo imaan doontaa, laakiin biyihii nijaasa ku dhacday mana ayan bedelin. wa huwa maa waqaca fiihi shayu min alnijaasaati kaalbowli wاlmeytati wagayri dalika walam tuqayir axada awsaafihi. waxa weeyaan waa biyaha wahuwa isagu waxa weeye maa waqaca fiihi waa midka ay ku dhacday shay-u min nijaasaatin, shay nijaasaadka ka mid ah ku dhacday waa lagu kaadiyey maalan, ama meytaa lagu tuuray, bakti baa lagu dhex tuuray biyihii isagahaa, wakayri daalika iyo wixii lamida nijaasaadku inoo imaan doona. walam tuqayir axada awsaafihi, laakiin awsaafta saddexda ah riixdii iyo urkii iyo طacmigii iyo midabkii midna ma ayan bedelin. marka biyaha noocaasa xukunkooda waxa weeye fahaada maaءu طuhuur, biyaha noocaasa waa طaahir weeyaan. biyaha noocaasa waa طaahir weye. nabiguna calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yihi markuu ka hadlaya xadiiskii can bi'ri اbidaaca, markuu ka hadlahay wuxuu yihi in almaaa طuhuur laa yunajisuhu shay, biyuhu sidoodaba waa طaahir weeyaan, wax nijaaseynayana biyaha ma jiraan ayuu yihi maaragta. wاlmuraadu muraadka hadalka nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam laga wado waxa weeye ana الnaasu kaanuu yadacuuna aqdaara bijaanibi اlbi'ri, dadku gumaamada iyo wasakda intay iska soo saaraan oo guryahooda ka soo saaraan bay dhinaca ceelka ayay soo dhigi jireen wasakda noocaasa. markaasaa waxaa iman jiray buu yidhi wa ana alamطaara tasuuquhaa ila اlbi'ri, markuu roobab ay yimaadaan ayay soo qaadi jirtay wasakhdii iyo gumaamadii iyo kudaafadii dadku ay ceelkii agtiisa soo daadiyeen. markay soo qaado ay kusoo shubi jirtay ceelkay kusoo shubi jirtay. wa kaana almaau likahratii laa tu'ahiru fiihi, laakiin biyaha badnaantooda darteed ayaa waxa weye wax saamayn ah iyo wax isbedela biyahaasi kuma dhici jirin. wuquca hadihi اlashyaa walaa yataqayar, gumaamadan iyo wasakdan ceelka ku dhacday iyo biyihii sidaa usii maray ee faraha badnaa wax ta'hiir ah ama wax saamayn ah kuma aysan samayn jirin. marka biyuhu hadday halkaa ay gaaraanna waxa weeye laa ba'sa, waxba dhibaataa ma laha weeyaan, oo biyahaasi waxay qaadanayaan xukunka biyaha daahirka ayay qaadanayaan. biyaha ugu dambeeya ayuha alaxibatu اlkiraam waa biyaha najiska la yidhaahdo nijaasadu ay ku dhacdo weeyaan. biyaha najiska la yidhaahdo iyagana maxaa lagu garanayaa? ila dhowr biyaan soo sheegnay oo kulligood waxa weeyaan biyihii saafiga mooyaane kuwa kaleeta mid walba wax lagu qasay oo qaarkoodna midabkoodii oo dhan uu isbedelay, qaarkoodna waxa weeye uusan midabkoodii uusan isbedelin. marka biyaha najiska waxa weeye wa huwa maa waqaca fiihi shay-u min anijaasaat, waa midka uu ku dhaco weeye nijaasaadka waxyaabo ka mid a. waxyaabaha nijaasaadka ka mida walbowli kalbowli aw almeytati, sida kaadi oo kale biyihii waa lagu kaadiyey ama meytataa ku dhacday oo bakti baa lagu tuura biyihii, faqayarat nijaasatu axada awsaafihi halaaثa, nijaasadaasi marka waxay bedeshay biyihii lagu kaadiyey ayaa waxay bedeleen saddexdii awsaaf bay bedeleen. riixdii way bedeleen oo biyihii waxay noqdeen biyo uraaya, waxay bedeleen xagga طacmigii oo haddii la dhadhamiyey biyihii biyo caadiya ma aha. haddii xagga kale ee maaragtay midabkana way bedeleenoo biyihii maaragtay saafiga ahay ee la yaqaanay nooc kale iyo weji kale ayay yeesheen, ama riixdii bay bedeleen aw طacmihi aw lownihi, fahaada najisun biاlijmaaci walaa yajuusu isticmaaluh. maxalu shaahidku wakaa marka biyaha noocaasa ee nijaasadu ay ku dhacday ee awsaaftii saddexdahayd ee طacmigii iyo riixdii iyo lownkiina ay bedelmeen, biyahaasi waxa weeye waa nijaaso weeyaan bilijmaac, sida culimmadu ay ku ijmaaceen ee dhammaantood ay ku kulmeen. mana bannaano biyaha noocaasa in la isticmaalo, ma bannaano weeyaan. masaa'il baan ku soo khatimayaa. masaa'ilkaasi waa masaa'il kula socon doona abwaabta inaan soo mari doono oo dhan, kuwii aan soo maray iyo kuwa soo socdaba. fi lmaa'i طahaaratun, biyaha sidoodaba asal ahaan waa طaahir weeyaan.
فإذا كان هناك ماء لا يعرف هل هو طاهر أم نجس فالأصل فيه طهاarة biyaha sidoodaba asal ahaan waa طaahir baan idhi biyaad heshay ama biyaad aragtay adigoo u baahan inaad ku طaahir qaadato saa biyihii ma ogid inay طaahir yihiin iyo inay nijaaso yihiin asal ahaan baad u noqonaysaayo biyihii maadaama asal ahaantoodii hore ay طaahir ahaayeen biyahaasi طaahirnimaad inaad ictibaarinaysaa walaa yenbaqii atakalufu mana loo baahno inuu qofku iskalifoo yidhaahdo biyahani amaa lagu xaaray ama lagu kaadiyey ama meyte ay ku dhacday takalufka noocaasa shareecadeennu ma ogola ee waxaa la doonayaa in asalka isaga laga raaco lada waidaa shaka fii najaasatihi maaan kaana asluhu najisan faxukmuhu cala alasli aladii kaana calayhi haddii biyo uu ka shakiyo asal ahaantoodii uu nijaaso lagu ogaa biyahani ma nijaasa mise waa daahir asalkii un baa loo noqonayaa maadaama asal ahaan biyihii hore ay biyo daahir ahaayeen oo qofku markuu ka shakiyana la yidhi asalkii hore alyaqiinu laa yuzaalu bishaki shayga yaqiinta ah waxa weeye laguma zuuliyo shaki laguma zuuliyo bal yaqiintaa shakiga suulisa marka sidaa daraaddeed waxaa la doonayaa biyahan dambe ee nijaasada aad ku ogeyd eed aragtay haddii shaki uu kaa galayna nijaasadooda hore u noqonaysaa yajuusu mas'alo kaleo iyadana ka dhawaajiyo wuxuu yidhi yajuusu alwuduu'a bimaa'i zamzam bima habata ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalam da'a bisijil waxaa bannaan oo u bannaan qofka nasiibka u hela inuu ku weyse qaato biyaha zamsamka la yidhaahdo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markii uu ceelka zamsamkaa yimi wuxuu yidhi ii dhiiba wadaan waa loo dhiibay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuuna cabay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuuna ku weyse qaatay min maaءi zamzam fashariba minhu watawada'a nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuuna ku weyse qaatay wuuna cabay waxaan axibati اlkiraam aan ka qaadanaynaa masaa-isha noocan ahna in shayga yaqiinta ah aan loo dhaafin shaki iyo sidaa miyay ahayd iyo maaragtay waxbaa iga dambeeye iyo waana masalo inoo imaan doonta abwaab badan oogu imaan doonta hadday salaada tahay iyo haddii ay tahaarada tahay iyo haddii ay abwaab fara badan oo kale ay tahay way inoo imaan doontaa waana shay loo baahan yahay axkaamu nijaasaat nijaasaadkuna waxay leeyihiin axkaam bay leeyihiin nijaasada markii laga hadlaayo culammada islaamku labada qaybood bay ka qaybiyaan habka tacriifkan ka wadaa tacriifku waxa weeye alkhadaara la yidhaahdaa wasakda la yidhaahdaa iyo kudaafadda la yidhaahdaa kudaafadda waxa weeye nijaaso weeyaan ama ha noqoto kaadi ama ha noqoto saxara ha noqoto iyo wixii lamid ah xagga sharciga laakiin markii laga hadlaayo alkhadaara alatii amara ashaaricu biisaalatiha waa wasakda iyo waxyaabaha maaragtay naftu ay karahdo ee sharciga islaamku ina amray inaan iska fogeyno iska suulino anwaacu nijaasaat nijaasaadku anwaac bay ka kooban yihiinee qaybo weeye dhowr ah waan dul maraynaa kadibna mid walba sideedaan u dul istaagi doonna haddii ilaah yidhaahdo albowl alaadamiyi wa cadratih qofka saxaradiisa iyo kaadidiisu waa min anijaasaat weeyaan addam alxayd damka xaydka ee dhiigga ee caadada gabadha ka yimaada isagana nijaasaadka ayuu ka mid yahay bowlu rawthi xayawaan gayru ma'kuuli laxm xoolaha degadiisa xoolaha aan la cunin degadiisa ama degadooda iyo saxaradooda waxa weeyaan iyadana nijaasaadka ka mid taho hadday ku taabato hadda waa inaad iska dhaqdo oo iska nadiifisaa la doonaya licaab alkelb kelbiga waa ayga weeyaan dhareerkiisa isaguna nijaasaadku ka mid yahay waa in la iska ilaaliyo weeyaan almadiy madiga waynoo imaan doonaa isagana waa dhareeraha qofka ka yimaada weeyaan waxa weeye maa-un abyadun raqiiqun lasijun qofku markuu mulaacabo sameeyo ama soo xusuusto jimaac iyo biyo cadoo ka yimaada weeyaanu dareera marka waxa weeyaan iyadana nijaasaadkay ka mid tahay alwadi wadigu isaguna nijaasaadku ka mid yahay isaguna waxa weeye waa maa-un abyadun qaliiqun yakhruju bacda albowl waa biyo cad oo xoogaa yaro kakan oo ka soo baxa qofku marka uu kaadiyo kadib bay ka yimaadaan inta hadda aan soo sheegnay waxa weeyaan waa nijaasaadka weeyaan loo baahanya in la iska ilaaliyo albowl alaadamiyi wa cadratii aan ku laabanno qofka kaadidiisa iyo saxarada ka timaada waxa weeyaan
waa nijaaso weeyaan. hadday dharkaaga gaadho ama badankaaga ay taabato ama meesha aad doonaysid inaad ku cibaadaysato ay taalo in la zuuliya la doonaya. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiiskii caraabigaan soo qaadanaynaa aladii baala fi lmasjidi faqaala lahu nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam, ninkii reer baadiyaha ee masjidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ku kaadiyey ayaan soo qaadanaynaa. wuxuu yidhi markuu kaadidiisi dhammaystay saxaabadu ku qamaameen ee nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ka celiyey ee nebigu calayhi الsalaatu wasalaam naasix ilamiin buu ahaa ee u yeedhay ninkii ee u nasteexeeyey ee towjiihaadka saliimka nebiga uu siiyey calayhi الsalaatu wasalaam. ninkii hadalladiisa waxaa ka mid ahaa, ina hadihi اlmasaajidu laa tasluxu lishayi min hada اlbowli wala اlgadari inamaa hiya lidikri اllahi waالsalaati wa qiraa'ati اlqur'aan. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu sheegay ninkaa isaga ah oo ku yihi ina hadihi اlmasaajid masaajidatan oo masaajidkan aad ku kaadisay uu ka mid yahay laa tasluxu ooma suubato lishayi min hada اlbowli wala اlqadar, ooma suubato in lagu kaadiyo, looma suubato wax kudaafada iyo wax wasakh ah in marnaba loola yimaado, ooma ay suubato. inamaa hiya lidikri illaah, waxaa uun loogu talagalay ilaahay subxaanahu watacaala in lagu xusaa loogu talagalay, wasalaa in lagu tukado oo ilaahay subxaanahu watacaala loogu cibaadaysta loogu talagalay, wa qiraa'ati اlqur'aan in qur-aanka kariimka lagu akhriyan baa loogu talagalay. maahana sidan aada maanta samaysay waa rasaa'il ama message baa la yidhaahdaa uu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ninkaa u diray oo ilaahayna markii dambe subxaanahu watacaala uu ku anfacay. marka kaadida iyo saxarada labadaaba waa nijaaso weeyaan, in laga suuliyo meesha markaa ay ku dhaceen ama lagu kaadiyo ama lagu saxarooday. dharkii in laga suuliyo weeye, waa in laga suuliyo weeyaan. badankii iyo jidhkiina waa in laga suuliyo weye. damulxayd baa kuu soo haray, waa midda labaad weeyaan nijaasaadka ka midkaa. alayhi salaatu wasalaam ayaa waxa weeye lima habata ana khawlata bintu yasaar ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam, gabadhaasaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam atat الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam faqaalat, nebigay u timi calayhi الsalaatu wasalaam markaasay waxay ku tiri yaa rasuula اllah laysa lii ilaa thawbun waaxidu wa ana axiidu fiih. nebi allah waxaan leeyahay bay tiri hal maran baan leehay, maradaana waan ku xaydaa oo dhiigga caadada iga taabta ilaa iyadoon baan qabaa marada iyada ah. faqaala nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam, faidaa طahurti faاqtasilii, markaad daahir noqoto buu yidhi maydho ayuu yidhi mowdica dami ثuma salli fiihi. markaad daahir noqoto buu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam, faqsilii mowdica dami, meeshuu dhiigga uu kaa taabtay ee marada ah maydhoo dhaq buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam bui uma salli fiih, kadibna ku tukayuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam. halkaa waxaan ka qaadanaynaa in la dhiigga isagaa marada uu taabtay la dhaqaayo on lagu tukanin oo nijaasadaasna laga suulinayo caynteeda. wamaa cadaa dama alxaydi fahuwa طaahirun sawaء kaana daman masfuuxan aw kayra masfuux. laakiin wax alaalihi wuxuu dhiigahoo ka soo haray dhiigga xaydka ahi een soo sheegnay waxa weeyaan waa dhiig maaragtay waa xalaal weeyaan, ama ha noqdo damkan masfuuxa ama kayr masfuux ha noqdo, damkan xoolaha la qalay ha noqdo ama yuusan noqonin kayr masfuux yuusan noqonin. lima habata waxaa ka sugnaaday nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ana axada almushrikiina ramaa rajula min almuslimiina bisahmin, nin mushrikiinta ka mida wuxuu ku soo tuuray leeb, ayuu nin muslimiinta ka mida ku soo tuuray wahuwa qaa'imun yusalli fa asaaba, isagoo tukanaya ayuu ku soo tuuray leeb, fanazacahu wastamara fii salaatih. kolku ku soo tuuray buu leebkii intuu iska siibay ayuu salaadiisa iska watay, wadamu yasiilu minhu, dhiiggii oo ka shubmaayo oo ka daadanayo, dhiiggii oo ka shubmaayo oo ka daadanayo. marka dhiiggaa isaga shubmaya daadanaya, ninkii isagaa salaaddii inuu ka baxo ama dib ugu celiyo ma ayna maqlin. marka sidaa daraaddeed waxa weeye dhiiggu mar hadduusan xaydka iyo nifaaska ahayn waxa weeyaan waa daahir weeyaan. mas'alada saddexaadna waxa weeye waa digada iyo kaadida ama saxarada iyo kaadida xayawaanka hayru ma'kuuli laxam, hilibkiisaan la cunin weeyaan. xayawaankan hilibkiisa la cunin kaadidiisa iyo digadiisa iyadaba waxa weeyaan waa nijaaso weeyaan. waxaana daliil u ah
xadiiskii ibni mascuud radi allahu canhu uu nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam uu yihi أtى الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam alqaayطa faamaranii an aatiyahu biثalaaثaةi axjaarin fawajadtu xajarayn. nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam baa wuxuu yimi meel lagu xaajo guto ayuu yihi nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam, meel khala ah oo lagu xaajo guto ayuu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam markaasu wuxuu igu yidhi waxaad ii keentaa 3 dhagax ii keen. fawajadtu xajarayni, 2 dhagax baan marka soo helay buu yidhi. waltamastu الثaaliثa falam ajidhu, dhagaxii saddexaadna waan raaraadiyo waan waaye buu yidhi marag. faakhadtu rawhatan faataytuhu bihaa, markaasna waxaan soo qaatay buu yidhi oo soo qaaday diga ayaan soo qaaday. digadii baa nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam u keenay faakhada alxajarayni o alqa rawha wa qaala hada rigsun. nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam 2dii dhagax intuu qaatay iyo digadiina tuuray calayhi الsalaaةu wasalaam uu yihi midani waa nijaaso weeyaan, midani waa nijaaso weeyaan. halkaasa maxalu shaahiidka waxaan ka qaadanaynaa in xoolaha hilibkoodu kayri ma'kuulkeen la cunin inay maaragtay kaadidooda iyo digadooduba inay nijaaso yihiin baan halkaa ka qaadanaynaa. maa xukmu اlbowli warawthi maa yu'kalu laxmahu, waa masalo kale iyadana loo baahan yahay in la isweydiiyo. xoolaha la cuno, xoolaha ma'kuulkee la cuno kaadidooda iyo bowlkooda iyagoo xukunkooda shareecada islaamka muxuu yahay? bowl xayawaani ma'kuuli laxmi wa rawtihi طaahirun, kaadida iyo digada xoolaha hilibkooda la cuno waa طaahir weeyaan. lima habata can anas ibni malik radia allahu canhu ana naasan qadimu اlmadiina. anas ibni malik baa inoo wariyey oo nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam inooga wariyey nimankii xanuunsanaayee madiine yimi ee nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam markay ku xanuunsadeen madiine ku xanuunsadeen fajtawuuha ay mariduu fiiha, madiinay ku xanuunsadeen. xanuunkii markay xanuunsadeen nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam fabacaثahu الnabiyu ilaa ibli sadqa liyashrabuu min abwaaliha wa albaaniha. markaasuu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam nimankii buu towjiihey wuxuu yidhi waxaad aadaan halkaa taga, waxaad u tegi doontaan xoolihii sadaqada ee muslimiinta, waxaad cabtaan kaadidooda iyo caanahooda cabba. bifadli اllaahi subxaanahu watacaala meeshii bay tegeen, caanihii kaadidiina way cabbeen. xadiis dheer buuna ahaa oo nimankii iyaga ahaa ee ixsaankaa loo sameeyey ee markay caafimaadeen ay sixadooda iyo caafiyadooda usoo noqotay waxay sameeyeen jariimo. nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam markii dambe iyagiina lasoo qabtay oo sidii ay yeeleen aljazaءu min jinsi اlcamal baa ka dhacday. nimankii geela sadaqada la joogay bay intay laayeen bay indhahana waxa weeyaan maaragtay ay jireen oo meel qoraxana kaga tageen. nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam nimanka lasoo qabtay waana lasoo qabtay sidii ay u ciqaabeen oo kale un baana loo ciqaabay. xadiiska bukhaari baa soo saaray weeyaan. marka waxaan ka qaadanaynaa maxalu shaahidka ah xoolaha hilibkooda la cuno waxa weeyaan kaadidooda iyo waa xalaal weeyaan, caanahooduna waa xalaal weeyaan. laakiin xayawaanka aan hilibkiisa la cunin waxa weeyaan digadiisa iyo kaadidiisa labadaba waxa weye najaaso wey, ha layska ilaaliyo ayuha alaxibatu اlkiraam. midka afraadna waxa weeyaan waxyaabaha najaasaadka ka mid ah almeytata. meytada waxa weeye waa baktiga weeyaan, neefka dhintay. wahuwa maa maata xatfa anfihi min gayri dakaatin sharciyatin, waa neefka baktiye dhintaa la yidhaahdaa iyadoo on la xalaalaynin oon gowrac sharciga aan lagu samaynin. haddii uu sidaa ku dhinto neefku, ilaahay baa inoo sheego wuxuu yihi qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxarama calىa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna meytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun. waxyaabaha iyaga ah mooyaane inta kaleetoo dhan way inoo bannaan tahay. wixii ama khanziir ah ama maaragtay meyte ah ama dam oo masfuux ama laxmi khanziir ah, waxyaabaha iyaga waxa weeyaan waa najis weeyaan. lama ogola in hadday jirkaaga taabtaan ama maradaada taabtaan waxa weeyaan maaragtay waa layska daahirinaya. wayadkhulu fi lmeytati maa quطica min albahiimati wahiya xayatun qabla dabxiha. waxaa soo gelaya oo kale meytadaa soo gelaya xoolaha wixii laga gooyo iyagoo nool. haddii dabada laga gooyo ama barida laga jaro ama laga jaro xubin ka mida xubnahooda, iyadana meytadii bay soo gelaysaa maaragtay. 2 arrimood baa laga soo reebaa meytada aan soo sheegnay ee nijaasada ah
labada arrimood waxa weeye meytatu samaki waljaraadi iyo meytatu maa laa nafsa lahu saa'ilatun kadubaab. labada iyagu ah xataa hadday meyto yihiin ama ay dhinteen iyagu waxa weeyaan nijaaso maaha. meytada samaga iyo jaraadka ayaxa iyo maaragtay kalluunka haddii kuwa iyagoo dhintay aada heshid nijaaso maaha, bal waxaa kuu bannaan uu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu yihi xillat lana meytataani wadamaan, laba dhiig ayaa inoo bannaan buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam iyo laba meyd baa inoo bannaan. almeytataani waxa weeye fasamaku waljaraad, waa ayaxa iyo kalluunka, labada haddaan meyd ku helo waxa weeyaan waa nijaaso ma aha. wa ama damaani falkabadu wataxaan, beer yarada iyo maaragtay wadnaha ama beerka, labada iyaguna waxa weeye iyaguna nijaaso maaha. meytada iyadana aan nafta maaragtay dhiigga daadanaya aan lahaynna iyadana waxa weeyaan meyto maaha, sida daqsiga iyo wixii lamid oo kale. oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu inoo sheega u yihi idaa waqaca dubaabu fii inaa'i axadikum falyaqmishu, haddii uu ku dhaco weelka axadkiin uu ku dhaco uu dubaab iyo daqsi uu ku dhaco ha dhex geliyo ha dhex dhumbiyo ayuu yidhi. ثuma liyaطraxhu, kabacdina ha banaanka ha u tuuro ayuu yidhi. faina fii axadi janaxayhi shifaaءa wa fi laakhiri daa, labadaysa garab midna wuxuu ku sidaa cudur buu ku sidaa, midna daawuu ku sidaa. marka kii cudurka haddii uu geliyo waxaa la doonaya isagoo dhan inaad dhumisaa la doonaya. shareecada islaamkuna markii tibiga xadiiska la baaray waxaa la ogaaday ficlan daqsi walba inuu leeyahay laba janaax, labadaa garab, midna uu cudur iyo marad ku sido, midna uu xumbaarsan yahay caafimaad ilaahay xaggiisa ka ahaaday. marka tacaaliimta islaamka waxay ku leedahay wadageli, isagoo dhan wada dhumbiyo kadibna iska tuur. sidaasaa maaragtay cudurkiisii iyo daawadiisa isugu baxayaan. waxaan khayr ahayna kaa gaari mahayo. aamana billaahi wa rasuulihi baana la yidhaahdaa. ictiraad iyo hadal iyo siday ku dhici kartaa iyo arrintan siday maaragtay looma baahna. ilahay waxaan wadiisanayna subxaanaه wa tacaala towfiiq wasadaad. hada wallahu aclam, wslى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى aalihi wasaxbihi ajmaciin, wajazaakum اllahu khayra wailى liqaaءi aakhar.